tartan ciyaareedkani oo loogu magac daray isdhexgalka dhalinyarada gobolka Togdheer oo muddo 20 cisho ka socday garoonka cagaaran ee Burco Sport Center ee magaalada Burco ayaa ciyaartii koobka waxa iskugu soo baxay labada kooxood ee carwada Nokia iyo koox ku ciyaaraysa magaca xildhibaan Mubaarak Bidhi waxaana munaasabadani ciyaartani ka soo qayb galay wasiirkii hore madaxtooyada Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan halkaas oo simi qaamsar ay ugu soo dhaweeyeen dhalinyarada ciyaartooyda ee gobolka Togdheer iyo xildhibaan Mubaarak Bidhi oo isagu door weyn ku lahaa qabsoomida iyo qabanqaabada tartankani sida quruxda badan uga socday garoonkani waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay mulkiilaha garoonka Axmed Aadan Tarabi iyo mas'uuliyiintii ay kooxuhu iska haleeleen ciyaartani iyagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta dhalinyarada isla markaasna iskugu hambaliyay ciyaar wanaagii dhex maray hore hambaliyo iyo bogaadin buu soo jeedinaya kooxdii ku guuleysatay koobkan wuxuu socday muddo bila waxa ku guuleysatay kooxda Nokia Star iyagoo wareegii ugu dambeeyay finalka isugu soo hareen kooxda ku ciyaaraysa magaca xildhibaan Bidhi iyo kooxda ku ciyaaraysa magaca Nokia Electronic Accessories waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha badan ee nagala soo qayb gashay xafladan maamuuska ee aanu ku qabanayno koobkan ugu horeyn horta marka hore ciyaartan ciyaar adag bay kooxda badisay ma aha 12 kooxood ee ka soo qayb galay tartankan lagu qabtay garoonkan runtii waan u mahadnaqayaa dhamaantoodba labadii kooxood isku soo hareen waxay noqdeen kooxdaydii magaca ku ciyaaraysay hal waan gacanta ku hayay iyo kooxdan carwo dalxiis carwo Nokia nacamtu magac baday carwo Nokia laba jeer hore qaadeen runtii waxaan jeclaa caawa inaan koobka ka reebna laakiin oo hambaleyna inay koobkii mar saddexaad halkan ku qaadaan oo hambaleyna runtii kooxda dhiirigelina dhalinyarada da'yarta si ay tahriibta iyo muqadaraadka iyo wixii la mid ah waxa weeyaan aan uga hortagno oo looga ilaaliyo dhalinyarada waxaan jecel lahay in mar walba ay guuleysato dhalinyaradu waxaan u mahad celinayaa isaguna saaxiibkay xildhibaan Bidhi oo kooxdiisu ay tahay taanuca oo koob ka qaadnay wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku hambaliyay dhalinyaradaasi ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen ciyaarta quruxda badan ee halka kooda ciyaaraysay aad iyo aad baan ugu hambaliyaynayaa u bogaadinayaa runtii qoladii ku guuleysatay Nokia Star aan leeyahay hambaliyo guushay ka soo hooyeen caawa halka kan aad baan ugu hambaliyaynayaa marka labaad ciyaaruhu waxay had iyo jeeraale waa ciyaar saaxiibtinimo laakiin se colaad ma keento waxa aan aad iyo aad runtii dhalinyarada ugu waaninayaa inaanay ciyaartu qabyaalad iyo cunfi iyo dagaal iyo rabshad iyo waxa keenini ciyaarta waxa loogu talagalay isdhexgal iyo saaxiibtinimo iyo jidhis iyo wax fiican inay keento oo horseedo marka aad iyo aad baan idinku hambaliyaynayaa mar walbana dhalinyarada meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciyaarta waa ciyaar looguma talagelin colaad ciyaartan oo laga dheehanayay jawi farxadeed ayaa waxa ciyaarta kama dambeystii ahayd Foodeystere labada kooxood ay gacanta ku hayaan isla markaasna magacyadooda ay ku ciyaarayeen xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo carwada Nokia ayaa waxa halkaas ay guusha ku raacday kooxda carwa Nokia ugu dambeyntiina waxa halkaas dhalinyaradii sportska ee gobolka Togdheer ay koob maamuusa ku guddoonsiiyeen wasiirkii hore madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan kaas oo ay ku sifeeyeen inuu ku mutaystay taageerida dhalinyarada iyo waxqabadka bulshada Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Harwanaag News magaalada Burco.